Soomaaliya markii ay noqoto waxaan dhihi lahaa gabadha Soomaaliyeed waxa adigu interest aad u haysid baro waxa adigu interest aad u haysid ee adigu aad u aragtid in energy u haysid hadda aniga si kasto u jiranahay inaan wax qurxiyo kama daalo waxa kaliya oo caafimaad ku helo waxa waaye inaan gurigayga qurxiyo sawir qaado ugu dambeeyna business aan sameystay ganacsi anigu aan leeyahay oo alaabta guriyaha insha Allah dhuusan mareebna inay keenaa rajayna oo gabdhaha reer dhuusan mareebay guriyooda qurux badnaysi Soomaaliya marka dad badan waxa laga yaabaa inuu micno lahayn interior design ku laakiin waa wax miskixiin iyo caafimaadin ba aad u fiican waana waxa anigu jecelahay waxaan xasuustaa yaraanteedii caaga daharkan tuli jiray distanta soo guran darbiga wareeti jiray ayeeyday markay haamanka tulay waa jeclaa inaan la tolo waxyaalahaas aan weligeed jeclaa gacmaha laga qabto wixii aan bartay marka waxaan ku dhiilaa abaay macaan mustaqbal wanaagsan aan ku rajayna waliba gabar aad u qurux badan baa tahay waxa adiga kugu haboon baro insha Allah waan kuugu duceynayaa garabkaagana waa ahay runtii alxamdulillaah inay dhalinyaradu saas ugu imaadaan gabdhuhu saas ugu imaadaan waa wax loo baahnay danahoodana ay ka wada hadlaan runtii gabar inay horumar gaarto waxaan isleeyahay cid jecel ma lahan laakiin gabdhaha wax bartay haddana bulshadii inay u shaqeeyaan ku dhiiriday waa inay baraan ragga si wax loo qabsado wax u qabsan waxna u dhaqano mararka qaar waxaa dhacdaa hadda markaan shirarka kale aan tago waxaa laga yaabaa inaan keligeeno mararka qaar anoo gabar meel ama nabadayn loo aada ama rag keliya joogaan aan ku dhex jiro waxaa laga yaabaa wasiiro kale mararka qaarna badan aan isaga dhex jiro waxaa lagu leeyahay awalba gabar ay aheyd يعني tusaale war baa la sheegay ama nabadayn baa laga shaqeynaa waxa leeyahay awalba gabar ay aheyd aan meesha ugu sii gudubno waxaan waa maasan tahay waa ku taageernaa waa ku dhageysanaa waa ku daysanaa inaan horumar gaarno ama tilaab aan haba kor uga sii qaadnana adaan kaaga daysanaa marka aad u maasantaa dhiirigelintaada kusoo dhawow caasimadda Galmudug kulamadaas aniga dhiirigelinteedu waxay tahay kulamadaas aan qabano diyaaran u nahay inaan dhalinyarada wax ka bixinaan diyaar u nahay inaan dhiigga shubnaan diyaar u nahay inaan gabdhaha Soomaaliyeed meel ka soo saarnaan diyaar u nahay oo maasantaa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa xildhibaanadeena gobsan abaay kulankaasna waa qabanaynaa waliba inta aan Galmudug joogo waxaan rabaa inaan wasaaradda haweenka aan la kulmo waxyaalo badan aan u kuurgalo aan ogaado haday noqoto inaan group sameysano diyaaraan ahay haday noqoto in gabdhaha waxbarasho laga caawiyo xataa xirfado loo sameeyana diyaaraan ahay haday noqoto inaan gabdhaha dhiiri geliyana diyaaraan ahay anigu mar kastaba adinka la'aantiin waxbana ma ihi waxna ma qabsan karo waxaana ahay markii runta la rabo gabadhii ugu horreeydo iyadoo la qabo marwaa ku dhiiratay inay inta banaan soo istaagto tiraahdo war gabdhuhu waxa qabsadaan muuqaalkayga igu horreeyay ee aan soo duubay caqabad aad u weyn oo gurigayga ku noqday odagayga in la yiraahdo ma kala tagteen waa la furay wadana waa la guursaday hadana uuray leedahay hadana waa dhale waa iska Soomaalida hadalkooda way gabadhu haday xaqiiqada ka hadasho waxay u arkaan in ayadii ninkeedu caqabad isku yihiin waa waxa noogala bartay in dumarka Soomaaliyeed markuu ninku tirirta uga sii jeesto aan meediyaha nimaadno runta ma kala rabo marka in hooyaha biyaha gurigeeda dhaqanayso dhexda marada ugu xirantay ninkeedii hal meel wuxuu wada wadaan ee haddana gabdhihii tiraadana wax dhaqaaleyso oo adiga ninkaadu horumar wada gaara oo ninku markuu tilaabso laba tilaabo siman qaado guriga problem ku ah inay tiraahdo ta ugu horreedo leeyahay waxa waay ninkii aan nacay iyo ninkii aan la guursaday iyo ninkii ka tagay waa caqabadaha na haysta markii meel la iskugu yimaadaan in tarankeena iyo xoolaheena lagu xisaabtamo muuqaalo badan ka soo duubay oo aniga maanta cid aan ka dhashay waxa gooni aan qabiilkaygu ma soo kordhiyo kaliya qaaraana waa la iga qaadaa markii la rabo in gabdhaha birgirtay reer Galmudug soo qaataan lambar 1 la iga dhigaa laakiin marka la dhaliilaa waxa la waa naag af dheer oo feminism oo Yurub ku kortay oo gabdhaha ugu dirtaa marka u joojimeyno meeshaan u soconaa ka badan annagoo marwooyina oo hooyooyina iyo annagoo single ah oo single mother iyo annagoo wali guursan intaba waxaan diyaar u nahay inaan hormarno waliba annagoo xijaaban oo asturan oo dhaqan wanaagsan leh anu gabdhaha xijaaban waa jecelahay waxaan gabdhaha ku boorinayaa maadaama aan qurbo ka imid inay gabdhuhu dhaqankooda iyo xijaabkooda ay haystaan wixii caqabad kugu ahna aad ka tilaabstay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo controlka nafteena iyo gacanteena ka bixin waxa u maleynaa hadaladii aan ku soo caanbaxo ahaa marka moor aad naftaada controlshid oo aad dareenkaada control kartid waa moor horumar gaartid arsiga markii maalin waxaan arkay muuqaalkayga aho aad firaal u noqdayo hataa waxa u maleynaa shaabdal inuu soo qaatay oo hadlay arsiga horta dadka inay arsaan jecel lambar 1 ka ah marar badan waa sheegay laakiin qaabkan u arsaan waxa adduunka waxa u jecel qof u xumeeyo horta ii soo baahda laakiin qofka markuu ii soo baahday ma dareensiiyo inuu yahay qofkii u xumeeyay soosan ma taqaana us dhaqsi iga tigin waxaan jecelahay inaan wax yar u qaadeeyo ma taqaana maalinba kis yar siiyo
agmar maro mataqaan oo arko inuu tii dhulka oo ku dhuftay istaagtay oo socotay ay noqoto oo ii soo baahdo marka guul waxa kuugu filan macaanto inta lagu xumeeyay in lagu soo baahdo insha Allah taas ayaan ugu dardaarmayaa inaan arsigana ka dhigano haduu Ilaahay yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim awala assalaamu calaykum waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'ala ee noo suuro geliyay halkan si nabad isugu imaano walaashay xamdina ay noogu qabato program qaali ah runtii gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan waa sharfan yihiin xamdina waa uga mahadcelinaa dhiirigelinteeda qaaliga runtii waxaan dhageysan jiray programyadeeda muddo aan u maleynayo inaan 4 sano 5 sano laga joogo waxaan ku xiraa barteeda TikTok-ta markasta mowduuc kasta oo xamdi soo galayso waxaad moodaysaa mid nolosha stepska aan marayo qayb ka ah inuu yahay xaqiiqan markii qofku muddo yacni uu ku dhex jiro bulshada wuxuu arki karaa caqabadaha iyo waxyaabaha nolosha ka qabsanaya runtii aniga waxaan ahay arday jaamacad ka baxay markaan guursaday waxaan u diyaarsanaay inaan macnaha guursado xaqiiqan dadka soo qaldama xoogaa ku degdeg kuma jirin ma sha Allah markii aan muddo 10 sano camal aan shaqeynayo waxaan isku programiyay inaan maadada kordhiyo aqoonteeda oo masterka aan diyaariyo hadda waxaan sugaa graduationkii masterkayga ma sha Allah ma ahan runtii fan laakiin qofku doorka uu ka gaaro macnaha shaqadiisa iyo horumarkiisa iyo waxbarashadiisa iyo howlkarnimadiisa inuu sheegaan rabaa aniga waxaan ahaa hooyo aan 30 sano gaarin oo laba da'ado caruur dhashay haddana guri ay leedahay ayadu degan waliba meel fiyaalaha magaalada dhexdeeda ka deganeed waxaan xasuustaa xilligii aan isku programiyay inaan macnaha hooy samaysto maadaama qof macnaha magaaladii ka shaqaystana aan ahay markaasna yacni capacity-gaygu uu ahaa meel igaarsiin kara dadka qaar guryaha markii dhismihiisa aan hortaaganahay inay dhahaan yaad gacan uga ahayd macnaha oo yacni ma aaminsana dadkeenu gabar yar oo 30 sano gaarina guri dhisa karta macnaha waxyaabihii waxaan mararka qaar dadka waayeelada oo kale waxaa laga yaabaa inaan ka weeci jiray aragtidooda oo dhihi jira qofaan gacan uga aha macnaha qaraabada ama walaalkay ama wax saasa ma sha Allah sababta waxaan diidaa xoogaa in maaragtay wax iga yamaan marka gabdhaha hadda waan jeclaa in microphone-ka laga damiyo waxaan ka faa'iideysanaa fursadan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto dadka 20 sano ka yar ama 25 ka yar waa dad u baahan macnaha somehow aniga hadda waxaan ka fikiraa waagii aan guursanayay macnaha inkastoo arday jaamacad ka baxay aan ahay 25 year aan ku guursaday haddana waxaan yacni ka fikiraa waxyaabo badan oo noloshaydii macnaha aan maanta wax ka bedeli lahaa inay markaas gacantaydu ay ka maqnaayeen marka laga fiiriyo dhaqaalaha marka laga fiiriyo khibradda aan guurka u lahaa marka laga fiiriyo wayga ama communicationka markaas aan isticmaalayo inaan maanta midkaas mid ka duwan aan isticmaali karo marka laga fiiriyo nolosha culayska ay ugu hayday markaas in hadda macnaha aan iska fududay karo macnaha oo yacni sidii nolosha u dhib badnayn wixii aan aniga macnaha saan u rabay u soco waayay hadday soco waayaan inaan ka tago kale xaqiiqan marka gabdhaha hadda waxaan rabaa si guud iyo si gaar ahaanba inaan ula dardaarmo inkastoo anigii safiyaba feminism wax la dhaho iyo yacni gender equality ka shaqeeyaan islaamaha empower gareeyaan waxyaabaha noocaas oo bulshada intaan caasimada ku sugannahay macnaha noogu jira laakiin by the way markii saytka kale laga fiiriyo gabdhaha waxyaabaha hadda yacni ay ku wadaan marka teenage-ka la fiiriyo nolosha sax maaha gabar waxaa arkay standard 8 dhigata gabadha qadara u geey karta inay uureysato inay nin guursato haddana yacni waa xanuun macnaha arday dugsi dhexe jooga ama dugsi sare jooga inuu yiraahdo waa guursana waa capacity aad u culus waa la samayn karaa oo dadka qaar qadara ku dhici karta laakiin gabdhaha miidiya joogaan gabdhaha warbaahinada ay dhageystaan gabdhaha caqabadaha hooyooyinka haystay og yihiin gabdhaha waxay la socdaan macnaha baraha bulshada problem kasta la isugu keeno xaqiiqan oo hooyooyinka qaar waxay guryahooda ku xalli waayeen aad moodo in macnaha baraha bulshada lagu xalliyo inahaas inay inta ka faa'iideystaan gabadhu ninka ay guursay ay ka fikirto qofka ay wax ku darsay karakterka uu leeyahay ka fikirto dhaqaalaheeda ay ku tashato ma ahan gabadhu kaliya inay jaamacad ka baxdo maaha xirfadu